السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa sida qoraalka page-ka loogu qaybiyo laba qaybood ama page-ka looga dhigo laba column. Halkan waxaa ii yaala qoraal oo tusaale ah. Marka haddii aad rabto inaad ka dhigato page-kaaga laba column, waxaad marka hore tagaysaa menu kore halka ay ku qoran tahay layout. kadib waxaad ka tagaysaa halkan ay ku qoran tahay columns. Click ayaad ku siinaysaa. kadib waxaa kuu soo baxaya dhowr nooc ee diyaarsan. hadda wuxuu ku aadisan yahay hal column. waxaad ku aadisan kartaa labo oo ah kan anaga hadda aan doonayno inaan ka dhigano. sidoo kale waxaad ku aadisan kartaa saddex. marka si aad labo uga dhigato kaliya waxaad dooranaysaa two. markaad two doorato wuxuu ku noqonayaa page-kaaga laba column ayuu u qaybsamayaa. marka haddii space-ka uu labada column u dhaxaysiinayo aad rabto inaad yareyso ama inaad weyneyso, waxaad kaliya ku noqonaysaa columns. kadib waxaad dooranaysaa more columns. waxaa kuu soo baxaya panel-kan yar. si space-ka aad u weyneyso ama aad u yareyso, waxaad wax ka bedelaysaa tiradani 0.5-ka. hadda space-kani u dhaxeeya labada column waa 0.5. haddii inaad ka weyneyso aad rabto, kaliya waad ka badinaysaa. okay ayaad leedahay, kadibna space-ka wuu weynaanayaa. sidoo kale haddii aad rabto inaad space-ka yareyso, halkii hadda ayaad ku noqonaysaa more columns ayaad leedahay. kadib space-ka sidii hadda oo kale tirada ayaad ku qoraysaa ama fallaarahan kor iyo hoos ayaad ku soconaysaa. haddii aad hoos u socoto, waxay ka dhigan tahay inaad space-ka aad yareynayso. tusaale ahaan waxaan ka dhiganaynaa 0.2. okay ayaad leedahay. marka cabirka space-kaaga adiga ayaa yaqaana. saad rabto adiga ayaa ka dhiganaya.